gabadhan ayaa aad loo hadal hayaa si la yaab lana u qabsatay saacadihii ugu dambeeyay social media-ha waxay ku soo libisatay midabada uu ka kooban yahay calanka Ukraine intaas kadibna jirkeeda waxay ku shubtay amba korka iskaga keentay dhiig aan run ahayn amba se dhiig fake ah waxay eegaysaa dhanka ay joogaan sawir qaadayaasha iyadoo rabtaa inay attention-kooda siiyaan markan waxay ku guda jirtaa qorshaheedii koowaad iyadoo dhowr jeer jallacday sawir qaadayaasha targetkeeda koowaad ayaa ah inay xagga sare korto si looga qaado sawiro waasic ah iyo fiidiyoyo badan waxay tusaysay waji dabacsan sidoo kalena waxa laga dareemayay deganaan marnaba la isma oran qofkan ayaa wax kala sameyn doonta amba wax kala ujeeda waxay soo saaraysaa imaka iyadoo soo qarsatay dhiigii ay rabtay inay isku shubto dhiigani ma aha mid runa waa mid uu qof kasta u baahanba uu soo iibsan karo sawir qaadayaasha goobta ku sugnaa ayaa qaar ka mid ah wax isku diyaariyeen si ay gabadhan sawiro uga qaadi lahaayeen nasiib xumo isla markiiba inkastoo dhiigii qayb ka mid ah isku shubtay laakiinse isla markiiba waxa soo dejiyay saraakiisha ammaanka ee goobta ku isla markiiba ciidamadii security-gu waxay sameeyeen falcelin degdeg ah iyagoo banaankana u saaray gabadhii balse way ku guuleysatay wayna gaadhay qorshaheedii iyo ujeedadii ay lahaydba gabadhan oo kusoo libisatay calankii Ukraine dhiigna korkeeda ku shubtay muhiimadeedu waxay ahayd kaliya inay muujiso dhibaatada iyo xaaladda ay ku sugan yihiin shacabka reer Ukraine inay sidan tahay goobtan waxa lagu soo bandhigay filimka loo yaqaano Calankii hadaba gabadhan ayaa ka dhex samaysay arin cajiib ah taasoo jirkeeda ku shubtay dhiig been ah amba dhiig feega haweeneydan oo ku labisneed midabada calanka Ukraine ayaa u dhowla cadeynayay sawir qaadayaashii goobta ku sugnaa ka hor intayna ka xaynin ciidamadii ammaanka amba banaanka ayna u saarin gabadhan ayaa ujeedadeedu waxay ahayd inay muujiso duulaanka joogtada ah ee Ruushku uu ku hayo reer Ukraine taas oo horseeday khasaare nafeed oo aad u badan iyo mid dhaqaaleba haweeneydan ayaa muujisay dareen muwaadinimo sidoo kalena qarnigan maanta la joogo dagaalka koowaad wuxuu noqday social media-ha daawada haddii aan adiga su'aal ku weydiiyo ficilkan ay samaysay gabadhan amba arrinkan ay samaysay sidoo adiga ku leeyahay sax mise qalad nagula wadaag fikirkaaga dhanka commentiga sidoo kalena haddii wadankaagu uu ku sugnaan lahaa xaaladda dalka Ukraine oo kale ma ku dhiiran lahayd oo ma samayn lahayd qaabkii gabadhan ay samaysay si ay u muujiso xaaladda uu ku jiro wadankeedu dhanka commentiga kaga soo jawaab su'aashaas kulliba muuqaalkan wuu ku soo gaaray oo waa daawanaysaa laakiin si walaal maxaa ku diidina like saarto si ay anigana dhiirigelin igu noqoto saar muuqaalkan like sidoo kalena share gare oo la wadaag asxaabtaada iyo family-gaagaba mahadsanid waa anigoo ah Nadri Saciid waad ku mahadsan tahay haddii aad nala soo gaadhay ilaa iyo dhamaadka muuqaalkan